Waa askariyad Yuhuud ah oo lagu qabtay dagaalkii 7 Oktoobar. Gacanta ayaa lagu dhigay iyada oo joogta meel supermarket ah oo difaac uga jirta. Askariyadan ayaa markii la qabtay oo la xiray kadib waxa ay isku dayday in ciidanka askarta Xamaas oo gacanta ku dhigay inay fasahaadiso kadibna ay ka baxsato. Waxa ay ka sheekeynaysaa qaabka loo qabtay, markii la qabtay iyo waxyaabihii ay xabsiga kula kulantay. Waxyaabaha la yaabka oo ay ka sheekeynaysaa waxaa ka mid ah in xogteeda la hayay, meesha ay ku sugan tahay, cutubkeeda iyo shaqooyinka ay qabatay oo dhan. Sidoo kale in la ogaaday in askari ka mid ah askarta inay shukaansatay oo ay rabtay inay baxsato. Haddaba sheekadeeda ayaan rabaa inaan kuu turjumo iyada oo ka sheekeynayso kadib markii la qabtay oo la sii daayay kadibna ay Israa'iil isaga haajirtay. Bal ila daawo sheekadeeda. Waxay tiri markii la xiray hortiisa ayaan isaga dhigay dharka anigoo isku dayaya inaan fasahaadiyo. Laakiin wixii dhacay waxay ahaayeen wax aan filan waayay. Markii la qabtay ma aanan qaylin, mana aanan ooyin, sidoo kale ma aanan cabsan sidii la filayay. Waan ogaa in xaalad adag aan galay, balse ciidamadaydii waxaa la i baray tababar ku saabsan sida loola tacaalo xaaladaha khatarta ah. Hal shay ayaa nagula baray: markaad gasho xaalad khatar ah, cabsi ha muujin, maskaxdaada deji, wixii hub ah aad haysatana isticmaal si aad isu difaacdo. Haddii aadan hub haysanna, dumarnimadaada isticmaal. Anigu jirkeyga ayaan u arkayay hubkayga. Ma aanan rabin inaan u ekaado qof tabar daran oo la ugaarsanayo. Waxaan rabay inaan anigu noqdo ugaarsatada, xitaa aniga oo ku jira qol cariiri ah oo ilaalo badan leh. Laakiin mushkiladda aanan ogeyn ayaa soo baxday. Waxayna ahayd inaan anigu u maleynayay inaan maamulayo xaaladda. Waxay i dhigeen qol yar oo xiran. Qolkaasi wax badan kuma jirin marka laga reebo sariir iyo joodari khafiif ah iyo daaqad yar oo iftiin yar ka soo galayo. Cuntada waxay ii keeni jireen waqtiyo cayiman, mana jirin hadal ama sheeko aan loo baahnayn. Anigu waxaan rabay inaan hadal ka furo meel kasta oo ay suuragal ka tahay, xitaa haddii aan ku khasbanaado inaan si gaar ah u kiciyo dareenkooda. Sidaa darteed waxaan bilaabay inaan u dhaqmo sidii qof xor ah oo qolkiisa ku jira. Markuu waardiyuhu cuntada ii keeno, jaakadayda ayaan iska bixin jiray oo waxaan u fariisan jiray si muuqaal soo jiidasho leh. Mararka qaar waxaan kula hadli jiray cod deggan. Markii waardiyuhu soo galay, waxaan go'aansaday inaan ka dhigto xiriir. Waan istaagay, si toos ah ayaan indhaha uga saaray aniga oo isaga eegaya. Waxaan ku iri anigoo ku hadlaya af Ingiriis, goormaa sidii qof caadi ah ila hadli doontaa? Mise maxaabiista faraha ayaa laga qaadaa ilaa ay geeriyoodaan? Waxaan rabay inuu i dareemo, inuu i arko inaanan ahayn qof eberkeed ah oo aan macno lahayn. Waxaan isku dayay inuu hadalkaygu ku abuuro wax naxariis ah ama ugu yaraan uu xiise i yeesho. Laakiin jawaabtu waxay ahayd mid aan rajo lahayn. Wuxuu si adag ii yiri asagoo af Ingiriis ku hadlaya, halkan cidna wax dan ah kaama lahan, ee haddii aad rabtid cuntadaada cun oo aamus. Anigu ma aanan niyad jabin. Maskaxdayda ayaan kaashaday anigoo isweydiinaya, sideen ku badbaadi karaa? Sideen u fahmi karaa waxa igu hareeraysan? Ma aanan rabin inaan noqdo qof dhaqan ah oo isku dayaya inuu qof kasta ku ciyaaro. Waxaan rabay inaan si xeelad leh u doorto qofka aan bartilmaameedsanayo. Dhammaan waardiyaashii i soo maray, kan keliya ee aan is iri waad fahmi kartaa wuxuu ahaa midka Ingiriiska ku hadlaya. Taasi waxay ugu sababtay inaan isaga ka dhigto bartilmaameedkayga. Waxaan u baahnaa qof aan la hadli karo, qof aan si tartiib ah qalbigiisa u hanto, qof aan saameyn karo, xitaa aan ka soo saari karo macluumaad muhiim ah isagoo aanay dareemin. Aniga ciidanka markii aan joogay waxaa nagula tababaray in cadowgu uusan ahayn oo keliya kan qoriga sita. Cadowga dhabta ahi waa kan haya xogta, kan og halka aad ka jilicsan tahay. Markaas ayaan bilaabay inaan raad raaco meel kasta uu ka jilcan yahay waardiyaha i ilaaliya aniga. Waxaan isweydiiyey, ma yahay askari caadi ah mase wuu ka xeelad badan yahay inta aad u malaynayso? Si aan u ogaado, waxaan go'aansaday inaan tijaabiyo. Waxaan rabay inaan arko sidii uu uga jawaabi doono su'aashayda, sidii uu iga falcelin doono dhaqankayga, sababtoo ah noloshayda waxa ay ku xirnayd inaan fahmo waxa maskaxdiisa ku jira. Maalintii ugu horreysay kaliya waan tijaabiyey waardiyaha. Ma aanan garanayn sida uu uga falcelin doono, laakiin waxa uu ahaa mid aad u taxaddar badan. Fursadna ima siin si aan isaga u dhex galo. Maalintii labaad waxaan go'aansaday inaan bilaabo tillaabooyin yaryar. Markuu cuntada ii keenay ayaan weydiiyey, sidee Ingiriiska ku baratay? Wuu hakaday dhowr ilbiriqsi sidii qof ka fikiraya sababta aan u weydiiyey. Kadib waxa uu igu yiri cod adag, taasi adiga kuma taalo. Aniga ma aanan muujin xanaaq, waan dhoolla cadeeyay, waxaana iska dhigay sidii qof raba inuu jabiyo darbiga naga dhexeeya aniga iyo isaga. Wuxuu istaagay dhowr ilbiriqsi kadib albaabka ayuu xiray, isagoo aamusan ayuuna baxay.
jawaab kale ima uusan siin, balse waxaan dareemay in fikrad yar oo maskaxdiisa ah aan durba ku beeray. Laakiin qorshihii hore iguma filnaan, waxaan rabay inuu waardiyuhu uu iga fikiro wax ka badan sidii maxbuus caadi ah. Maalintii xigtay markuu soo galay, su'aal toos ah ma aanan weydiin. Waxaan go'aansaday inaan ku hadlo hadal u eg dareen iyo shucuur. Anigoo cuntada cunaya ayaan ku idhi, aniga waxay ila tahay inay dhib kuga tahay inaad halkan joogto adigoo ka fog xaaskaada iyo qoyskaaga. Dhab ahaantii waxaad u baahan tahay xanaano iyo jacayl, soo sax ma ahan? Ayaan weydiiyey. Markaas ayuu indhihiisa igu eegay. Ilbiriqsiyo kadib, wejigiisu ayuu si degdeg ah u jeediyey sidii inuusan hadalkayga wax saameyn ah ku yeelan. Laakiin anigu waan arkayay wuu beddelnaa xilligaas. Anigu ma aanan isdhiibin oo waxaa iga go'need inaan qalbigiisa saameyn ku yeesho, sidoo kalena wax badan ka beddelo fikirkiisa oo aan wax saameyn ah ku reebo. Habeenkaas ayaan garaawsaday inaan markii hore gaaray heer aanan ka laaban karin. Waxaan go'aansaday inaan qaado tallaabo geesinimo leh, tallaabo uu u arko inaan ka duwanahay maxaabiista kale ee uu arko maalin kaste. Waxaan garanayay in ragga dabeecaddoodu tahay inay leeyihiin rabitaan iyo dareen aysan mararka qaar ku dhibtoodaan inay xakameeyaan. Xitaa haddii uu waardiyuhu shaqadiisa si adag ugu heelan yahay, haddana fikradaha haweeney maxbuus ah oo sidan u dhaqmaysa ma ahan wax gebi ahaanba aan saameyn ku yeelan doonin. Waxaan rabay inaan tuso inaan ka duwanahay kuwa kale, inaan muujiyo inaan weli haysto awood aan ku beddelayo maskaxdiisa. Markuu waardiyuhu albaabka furay si uu cuntada iigu keeno, ayaan dhulka fadhiistay. Darbiga ayaan ku tiirsaday, mana aanan xirnayn wax aan ka ahayn funaanad yar iyo surwaal gaaban. Ma aanan isu tusin sidii qof cabsi qaba ama dhibban, sidoo kale ma aanan u fiirin sidii cadow, ee waxaan isku muujiyey inaan jawi deganaansho ah ku jiro. Si toos ah ayaan indhihiisa u fiiriyey, anigoo aan cabsi lahayn, anigoo isqarinayn. Markaas ayaan cod hoose ku idhi, anigu waxaan caado u leeyahay intii nin ii dhow yahay inaanan awoodi karin inaan sidan sii ahaado kaligay. Markaan indhihiisa eegay, waxaan arkay inuu yaabay sidii qof aan garanayn waxa uu maqlay. Laakiin markiiba wejigiisu wuu isbedelay, wuxuu noqday mid xoogaa xanaaq ka muuqdo. Hal tallaabo ayuu soo qaaday, wuxuuna igu yidhi cod hoose oo jees ah, ma sidaan ayay raqiis u yihiin gabdhaha reer bani Israa'iil? Laakiin anigu ma aanan argagixin, mana aanan xanaaqin oo waxaan horeba ugu diyaar garoobay su'aashaas. Waan qoslay qosol yar, si qabow ayaan indhihiisa u eegay, waxaana ku idhi anigoo kalsooni leh, anigu waxaan ogahay sida aan u helo waxa aan rabo, adiguse waxaad u muuqataa doqon aan waxba fahmayn. Waxaan filayay in waardiyuhu isdhiibi doono, inuu xanaaqi doono ama inuu muujin doono daciifnimo. Waxaan islahaa wuu qaylan doonaa ama wuu ku canaanan doonaa, laakiin waxaas oo dhan ma aysan dhicin. Isagu si adag ayuu ii fiiriyey, weliba indho kulul ayuu uga eegay, indho aan lahayn naxariis iyo xanaaq toona. Kadib albaabka ayuu xoog u xiray oo ka baxay isagoo aan hal eray ugu dhihin. Markii ayaan nafsadeeda ku qanciyey inaan maskaxdiisa shaki weyn ku beeray. Waxaan islahaa waad ku guuleysatay inaad qalbigiisa saameyn ku yeelato, waanaad ka faa'iideysan doontaa. Laakiin arrintu waxay noqotay mid ka xun oo ka liidato sida aan filayay. Subaxaas wax cusub ma jirin. Waqtiga cuntada ayaan sugayay, anigoo maskaxdeyda ku mashquulsan tahay qorshaha xiga iyo sida aan dadka hareerahayga ah uga gaari lahaa danahayga oo isagu ugu horeeyo. Waxaan moodayay in weli aan awood u leeyahay xaaladdan inaan beddelo, laakiin waxa aanan ogeyn waxay ahayd in ciyaartii la dhammeeyey ka hor inta aanan anigu bilaabin. Waardiyihii ayaa ii soo galay qolka aniga oo iska fadhiya, balse markaan cunto iima keenin. Halkii uu cuntada ii dhigi lahaa ayuu igu yidhi ka bax qolka. Waan yaabay, meesha uu i geyn doono ma aanan aqoon, laakiin gudaha waxaan ka dareemayay in wax weyn ay qaldan yihiin. Waan raacay waardiyaha, waxaan ku socday marinada dheer ee xabsiga ilaa aan ka galay qol aanan weligii hore u arag. Gudaha waxaa taallay shaashad aad u weyn, ku dhowaad darbiga oo dhan ayay dabooleysay. Markii hore ma aanan fahamsanayn waxa aan arki doono, laakiin markii sawirada shaashadda ay soo muuqdeen, waxaan dareemay naxdin aan horey u dareemin weligay. Waxay soo bandhigeen macluumaadkayga oo keliya ma ahayn, balse ku dhowaad dhammaan askartii cutubkayga sawiradooda ayay soo bandhigeen. Magacayga, darajadayda, tababaradii aan soo maray, xeeladihii aan adeegsan jiray, dhammaantood shaashadda ayay ku soo qoreen. Xitaa waxaa ka muuqday sawirro howlgallo aan islahaa qarsoodi bay ahaayeen oo aan moodayay in cidna aysan ogeyn. Markay shideen shaashadda, sawirro iyo muuqaallo ayaa la soo bandhigay, laakiin waxyaabihii aan arkay waxay igu noqdeen naxdin. Waxaan arkayay aniga sawiradeyda balse mar hore la duubay. Waxaan u ekaaday qof doqon ah oo la isticmaalayay, weliba isticmaalaysa xaalad iyo tab aan waxba tarayn. Halka kuwa iga soo horjeeda waa alqasaame ay hore u yaqaaneen qorshayaashayda inta aanan xitaa bilaabin howlgallada.
Waxaan moodayay in anagu aan nahay dadka maamula Gaza, laakiin waxaan ogaaday in xogteena oo dhan ay gacanta ku hayaan Qassam. Cid hadashay ama sharaxda ma jirin, waxay iga rabeen kaliya inaan daawado. Kadib dhowr daqiiqo oo u ekeyd saacado ayaa la ii celiyay qolkaygii. Waardiyihii wax hadal ima dhihin, kaliya albaabka ayuu igu xiray uuna iska baxay. Waxaan isku dayay inaan iska dhigo sidii inaysan waxba dhicin, laakiin runtu waxay ahayd mid cad. Dhammaan qorshayaashaydii waa la fahmay. Xitaa waardiyihii aan isku dayay inaan saameyn ku yeesho ma uusan i fiirin sidii hore. Taasi way dhaawacday oo way niyad jabisay. Waxaan moodayay inaan ahay gabar caqli badan oo awood u leh inay xakamayso xaalad kaste, isla markaana ku ciyaarto maskaxda qof kasta oo ay rabto. Waxaan islahaa wax kasta waad fasahaadin kartaa, laakiin runtu waxay ahayd anigu inaan ahaa askari caadi ah oo lagu dhex tuuray nidaam weyn oo uusan fahamsanayn. Waan qaylin karay, waana iska caabin karay, waan isku dayi karay waddo kasta oo aan ku baxsan karo inaan raadiyo, laakiin waxbaa i beddelay. Markii ugu horreysay ayaa naftayda weydiiyey, ma sidaan ayaad samayn lahayd haddii aan horay u ogaan lahaa inaysan wax yeeli doonin, haddii aan ogaan lahaa inaysan i taaban doonin oo aysan i jir dili doonin? Maxaa igu qasbay inaan qaato jidkan foosha xun? Runta ayaa ah, haddii aan hore u ogaan lahaa inaysan i jir dilayn, inaysan igu xadgudbayn, xitaa aysan i taaban doonin, weligay ma isticmaali lahayn xeeladahan liita oo aan isku dayay. Waxaan u malaynayay inaan noloshayda khatar ku jirto, in xaaladdan ay sidaan ka sii xun tahay. Intii ugu xumeyd ee aan qiyaasi karay ayaan sameeyay. In xaaladdu ay intaas ka sii xun tahay, weliba mid ka daran wixii aan filanayay. Waan ka baqayay in haddii aanan wax samayn iyagu ay wax ugu samayn doonaan. Laakiin xaqiiqadu waxay noqotay mid ka duwan. Cid i jir dishay, i taabatay ama wax i yeeshay haba yaraatee ma jirin. Halkaas ayay ugu daayeen, sidii qof loo hayo siyaasad ahaan ama loo adeegsanayo in dunida loo muujiyo muuqaal gaar ah oo iyagu rabeen. Laakiin anigu waxaan arkayay wax kale. Waxaan arkayay in wax kaste ay nagu ogaayeen. Laakiin anigu waxaan arkayay wax kale, inay wax walba oo anaga nagu saabsan ay naga ogaayeen, balse anaga xogo been ah naloo sheegi jiray. Haddaba haddaan dib ugu laabto soo qabashadayda iyo sii deyntayda, markii la i soo qabanayay waxay ahayd markii musiibadii xoogganeed ee 7 Oktoobar ay ka dhacday gudaha Israa'iil oo ay soo qaadeen dagaalyahanada Xamaas. Subax aroor ah ayaan ka soo tagay gurigayga aniga oo adeeg u soo doontay supermarket aan ka fogeyn gurigayga. Dabcan sida aan gadaal ka ogaaday waxaa la hayay xogtayda, darajada iyo shaqada aan u hayay ciidanka. Waxaana ka mid ahaa dadkii targetka ahaa. Weerarkaasi wuxuu ahaa mid dadka dhan argagax geliyay. Aniga oo ku jiro supermarket oo ka adeeganaya ayaa hal mar magaaladii xabad ka bilaabatay. Daqiiqado kadib, gantaallo, xabado, rasaas iyadoo wax walba dhacayaan. Anigoo telefoon ku hadlaya ayaa la igu soo galay supermarketka. 4 wiil oo dhalinyaro ah ayaana i qabatay. Motofaykon ayaa la i saaray. Indhaha way iga xirnaayeen. Magaalada gees la iga bixiyay ma aqoon. Waxaana ii soo xigtay anigoo gaari la i saaray, kadibna xabsi la igu soo tuuray. Kadib waxaa dhacay wixii aan idinkaga soo sheekeeyay oo dhan. Xeelad walba oo aan isku badbaadin karana waa aan sameeyay. Nasiib wanaag, anigoo xabsiga ku jira ayaan ka war helay inaan qayb ka ahay maxaabiis lagu bedelanayo maxaabiis oo loo dhiibayo dhinaca Israa'iil. Waxaana ku jiray maxaabiistii halkaas ka soo badbaaday. Maalintii la i soo daayay, asbuuc hubin ah oo aan ku jiray oo la i baarayay wixii ka dambeeyay, waxaan ku laabtay gurigayga oo fasax bil ah ayaa la i siiyay si aan u soo dejiyo. Fasaxii bisha ahayd ayaan uga faa'iidaystay inaan waddanka uga soo baxo, dib dambena uguma laaban. Xarigaygii wuxuu saameyn ku yeeshay nafsadeydii, wuxuuna iga beddelay wax badan. Sheekadaydu halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Qisadii haweeneydii askariyadda ahayd ee gacanta u gashay Al-Qassam kadibna dib loogu celiyay Israa'iil halkaas ayay noogu egtahay. Waana mahadsantihiin.